horta Soomaalidu waa mucaarad meel kasta ay joogaan dawladii hore waa la mucaaraday tan dhalatay waa la mucaaradaya mid kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maalintii la doortay farmaajo madaxweynaha cusub sootay inuu wada sacabtunay sootay loo wada hambaliyay sootay gabi ahaanba ay shacabku israacsanayeen hadda maxaa keenay inaan dawladii oo aan dhalan madaxweynaha aan wali waxba qaban wasiiradii la dooran waxba la dooran in mucaarad laga keeno waxa jira dad aad u fara badan oo ololeynayay laakiin hadda ka soo horjeestay mid kale qofka hadii uu daliishi shalay isaga qofka taageerayay maantana haduu daliilo uu arkay uu soo bandhigo ama sheego ma ka muugubin macnuhu waa inuu qofku waa in la saxaa oo madaxweynuhu ka feejignaada waxyaabo fara badan marka waxaan leeyahay Soomaalida inuu mucaarad been iska nahay laakiin bal inta at least madaxweynuhu wasiirada magacaabayo ee dawladda caga dhiganaysa ee madaxweynihii degayo bal loo yiri kaadiyo qofku haduu 2 iyo 3 macaa sheego oo dhaliiloodu ilaa ka digtoonaadana in la carro oo Facebook-da lagu caayo oo leeyahay hebel baa waxa sheegay hebel baa taasna ma wanaagsana marka qofku anu waxaan aaminsanahay haduu dhaliisha sheego shalay haduu aaminsanayo uu xaafidsanaayo uu rabay maantana uu khalad sameeyo uu sheego wax weyn ma kana muugubna diinana muugub laakiin waxaan leeyahay inta dawladdu bal ay caga dhiganayso oo wasiirada la magacaabayo bal in xoogaa sugno saasana anigu isleeyahay